بسم الله وعليه هاي قفكو هدوها قف مر صلاة كتا مرتو كذا مرنا كتا مرنا ضعفة يعني لكن هذا بد كاني كتوبت كاني سيدابو كوقلين كرا أيقون لأوجين صلاة ضعفة تردود. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قفك صلاة مركي وتوبت كان له توبة ضعف ويديستو دي صلاة تردود عن لجرانين إن شاء الله تعالى توبة صادقة هدو لي مادو تاسا كان فعيس إن شاء الله تعالى هدي دي توبة دي سلقا ولا أقبلي وايو وآخر الله وقف صدنا آخر إلهي سؤال حالون بوالكين لو عفيين لو قبصده لكن هذا قدر قوانو عنده كره أما انت حقد يا أما الصلاة والبصلاة هالراعية ما جرتو تاتو ولا إن يكفر أنت هيبان رجينيا علماء كلا كول يجينيا هذا يكون دريان سؤال الله واضح له يا شيخ وحان قوا عذرك اللو يقان سنبوركا صلاتنا آد بيد بتاع قارهان صلاة الصبح هدي أن قبل يستقبل ورن شيخ وجزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. روحوا هدو بيها استعمال كودا كل باتونيو dhibaataduna ay tahay mashaqo ama dhibaato aan caadi ahayn oon muctaad ahayn ruqsu u haystaa inuu gabagabaysto biyahana iska daayo laakiin waa inay tahay mashaqada iyo dhibku waa inuu dhib adag yahay xoogaa samboor yar oo ku hayo dhowr goor unaad hindhisaysa hadduu yahay dhib weyn ma ah weysayso dhowr goorna iska hindhis mushkilo male haddiise laakiin cudur weyn uu kugu noqonayo oo markaasi ay ka dhalanayso inuu dhibaato weyn kuu geysto markaasi ruqsaad u haysataa inaad gabagabaysato ood biyaha iska dayso billahi tawfiiq. جزاك الله خيرا شيخ محمد عبد الأمل إلهي سبحانه وتعالى ميزانك حسناتك كوغو درو سؤال شكرا وحوليه الشيخ وحان مسؤول كاهي دكان ننكي لهانا ومقن يهي وحاجر مرمر لعاقو يرير او يقوب حاسيدة قدد يوحي لمدكا لعاقتها ايضا وحلال ما ايتهي. الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ninkan wuxuu ka yahay mas'uul dukaan sidoo leeyahay ninba u dhiibtay waa amaano uu gadaa lacaga yar baan isticmaalaa buu yiri intay tahay ma sheegin qado iyo waxyaalaha la mid ah aanu isticmaalo ma ii bannaan tahay. jawaabtu waxa weeye haddii aan lagu ogolaan oo ninka aanu ku ogolaan inaad qadada kala bixi karto ama uu wax ku qadarin mushaarna aad meeshii ka qaadato heshiiskana aanay ku jirin inaad isaga qadada iyo aad ku leedahay cuntada wixii mushaharkaaga kaliya baad meesha ku leedahay wax kalena amaanada lagu dhiibtay kama qaadan karto ama ha noqoto cuntadaada ama ha noqoto waxyaalo kale oo tasarufaada oo aad ka qaadatay maxaa yeelay amaana lagu dhiibtay way adil amaanata ila man i'tamanak wallahu a'lam. جزاك الله خيرا. gabadhan waxay leedahay sheekh waxaan mas'uul ka ahay caruur agoona meel ayaa raashin laga siiyaa raashinka isaga ah marti ayaa noo timaada martidii aniga waxaanu ka cunno xalaal miyaa. الحمد لله الشيخ قرانه وهالمامان مالين ساكو سؤال شيء ويديه marka de su'aasha saaka ka jawaabay sheekh qorana soo kuma filla dadkan uma maqlayn adaa waxay maraysaa arintu su'aalihii wadaadada hore loo weydiiyay ku soo celiyaan laakiin waan isaga celin insha Allah ta'ala dadku haday duyuuf iyo marti xaq yihiin qofka dayfka ah
cidda uu soo martiya nusuusta shariicadu xaq bay siisay. cidda la martinayo ee xaqa lagu yeelanayana xaqa diyaafada oo qadarka waajibka ahi intaan garanaya nusuustu ma kala qaadin inuu ilmo yar yahay iyo inuu weyn yahay, inuu agoon yahay iyo inuu aabba leeyahay. arrintaa waxaa dheer marka la eega macnaha xadiidkii nabigeena sala allahu calayh waalihi wasalam uu ku yidhi ninkii anta wa maaluka liabiik, adiga xoolahaagaba aabbahaabaa idin leh. haddii la yidhi aabbahaaba adiga xoolahaagaba idin leh oo mas'aladu xoolihiisoo ku tasarufay ama uu isticmaalay asalka xadiidku uu ku yimid, aabbihiiyo hooyaduna haddaanay hooyadu wax dheerayn ay xaq siman yihiin, qiyaaska xadiidkaana uu keenayo in waalidka wixii u baahda xoolahaaga ka isticmaali karo oo ku tasarufi karo. labadaa asal haddii la eego wixii aan ka badbadis aan ahayn ama wax dhib muuqdo oo weyn soo gaarsiinaya ilmaha xoolaha leh aan ahayn, waalidku hooyadaihi ilaa xad wixii macruufihii way ku tasarufi kartaa xoolaha ilmaheeda agoonba ha ahaadaan. martidu haddii soo martidana cidda ay martiday xaq bay ku leedahay wujuubu diyaafa ah. xuquuqda maaliga ahna waa laga bixiyaa amwaasha agoontu ay leeyihiin. labadaa haddii la isku daray martida soo martiday waa laga martigelin karaa, laakiin waa in aanay badanoo dee meeshii meel martidu isu soo sheegto oo la yidhahdaa halkaasaa dabkeedu mar walba shidan yahay oo ilmihii tacaddi iyo waxyaalo ku noqonaysa, waa inaynay noqon. martida waxaa la siinayaana wax ka badbadisa oo xaq iyo baahidii ay lahaayeen ka badan inaanay noqonin oo tacaddi noqon kara weeye. wallahu aclam. jasaaka allahu khayran. wuxuu leeyahay saa'ilkanu haweenka sheekh shaqo ma loo diri karaa ganacsi suuqa ah inay joogto suuqa ayuu leeyahay, yacni shaqada suuqa haweenka ma loo diri karaa? bismi illahi raxmaan raxiim. hal arrin horta waxaan kaga noqonayaa arrintii gabagabaysiga jawaabteedii. waxaan raba inaan kaga noqdo sandaarsiga ma waajiba mise waa sunno ayay culimmadu ku kala aragti duwan yihin. waxay qabaan in badan oo ka mida sandaarsigu waajibba ma aha. sidaas daraaddeed maadaama ay tahay sandaarsigu masalo wujuubkeeda iyo sunnanimadeeda laysku khilaafsan yahay, isagii hadduu tacaduro oo suuroobi waayo sandaarsigii, waysada inteedii kale xubnaha intoodii kale ha laga weyse qaato. haddii sankii aad biyihii gelin kari weydo oy kuu suuroobi weydo, beddelkii waysada dhan inta laga tago oo qodob ikhtilaafi a looga tago loo aadi lahaa beddel oo gebagabaysi ah, waa in sandaarsiga laga tago, xubnaha intooda kalena laga weyse qaato. haddii wejigoo kale ay ahaan lahayd waa farad aan khilaaf ku jirin, gacanta dhaqitaankeeda hadday ahaan lahayd waa farad aan khilaaf ku jirin, way noqon lahayd. laakiin hadday sandaarsi tahay, intaad ka tagto xubnaha intoo kale ka weyse qaado. qodobka halkaasaan kaga noqon lahaa. qodobka sheekh maxamuud uu ka jawaabayna wax yar baan ku dari lahaa. waxaan ku dari lahaa martigeliyada uu sheekhu sheegay wujuubkeedu waa maalin iyo habeen. habeen iyo maalin wixii ka badan martigeliyadu waajib maaha. waa qodob labaade, martida waxaa la yidhahdaa dad kor ka yimid oo socoto ah oo ku soo martiyey.
laakiin dad magaalada kula degan oo ka soo wareegay magaalada oo xaafadda yimid oo shaah soo doontay marti ma aha Soomaalidu laakiin marti bay u taqaanaa xaafado kale ka yimaadeen maanta magaaladay waxay joogaan xaafaday joogaan inay ka qadeeyaan bay ku tala galeen waxa laga yaabaa Soomaalidu mafhuumkeeda inay marti u haysato taana martida ma aha martida laga wado waa dad socota oo magaalada qariib ku ah oo reerka u yimid oo meel kale aan haysanin kuwaas marti la dhahaa martida sheekhu ka hadlayo ee xaq lana taayada way mafhuumkaasna laga yaabo dadka qaarkood inay qaataan oo saxda mas'aladan ugu dambaysa oo ah haweenka suuqa ma loo diri karaa asalku waxa weeye inay dumarku guryaha joogaan waqarna fi buyutikunna saasa asal ah laakiin haddana sida xadiidka saxiixa ku yaala nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam alla wuxuu idin idmay inaad xaajadiina soo gudataan oo banaanka markay xaajo uga baahdaan way soo gudan karaan haweentuna way ganacsan kartaa dukaanna way furan kartaa laakiin waa inay dawaabidii shuruucdii shariicada dumarka ay ugu tala gashay in la ilaaliyo waa inay asturan tahay waa inaan dhib soo gaadhaynin waa inaan akhlaaqdeedii iyo xishmadeedii iyo xijaabkeedii iyo dhibaato soo gaadhaynin shuruud muayyan ah waa inaan fitna looga baqaynin shuruud muayyan hadii la helo la baas haweenka inay dukaan furato inay ganacsato laakiin mar walba waxa ka fiican haweenku inay gurigooda u bataan marka taasaan kaga jawaabi lahaa masaladu asalahan waa iska mubaax laakiin waxay ku xidhan tahay maxaa ka dhalanaya sababay shariicada u waafaqaysaa ayaa ka dhalanaysa su'aal bur sheekhu ii soo qoray laakiin isagaan u daynayaa wixii idaafa insha Allah ta'ala jazakumullahu khairan